nasiib darro ah nin MP soo ahaa 2.5 years oo weli shaqadiisa u garan waa ay jibro markuu MP sheegay county government and oversight ku sameeyna ninkaas nin fiyoba ma aha ama magaalo waa shaqadaas waa iska le senator iyo MCA hata wazee wanajua kusema kweli waxaan rabnaa lacagtii 85 boqolkiiba inaas wax naga soo gooyo mooyee naas meelahan wareego oo waana county government accountable wax loo baahan yahay ma we have a competent county assembly we have a competent and experienced senator who are doing their work. December markaan waan soo dhaafanay ma joogine maalin waxaan akhriyay nin MP oo page-giisu soo qoray oo dhahay meesha la yiraahdo Mandera County Government wax shaqo oo ka socoto ma jirto waa meel corruption ay ku bateen oo si wada wuxuu dhahay aniga artaanahay MP laga soo doortay Mandera East فامتحان ما يموت قلت وحرب أنا ذي شيء نينك MP أما MCA أما جبنا مركل الدوراني أو نينك سوق علي أما قبل سوقش وحال سمينا وحال يرادو orientation على سميني ما لينتون orientation معنا ده هو برلمان على جينا وعلى ده ماشى وحال يرادو chamber حق عفيس سبكة حق سانوي شامش هذا لا عبا بلا ترك سان الله هرنا سودات سويرني وحنا على بري بيجو هريس يا أو مركز جوجنا وعلى جينا كوس اللي هذا induction course induction مش غير على بري article 96 أو حلا شيء count من act هذا act على شيء على شغلات أداة بيتاي 1 2 3 4 oo markaas joogana training kala la siin waxaan nasiib darro ah nin MP soo ahaa 2.5 years oo weli shaqadiisa u garan waa ay jibro markuu MP sheegay county government and oversight ku sameeyna ninkaas nin fiyoba ma aha ama magaalo waa shaqadaas waa iska le senator iyo MCA hata wazee wanajua kusema kweli as member of parliament I will continue to exercise my oversight role to hold the county government accountable nini mbuusasli waa nin imtixaan waygas marka nin noocaas wuxuu u baahan yahay dhaw soo ma in loo dhaco maadaama uu shaqadii fahmin 2.5 years laga joogo oo weli ka hadlay shaqadii MCA aan qabana ama shaqadii senator aan qabana waa dhib way markaasaan ogaaday mushuma mooltay markaas wuxuu sheegay wuxuu dhahay aniga MCA aan haway aniga senate speaker anaga way anay MPyash kale anaga ka way maadaama ligi soo doortay Mandera East daraadina wuxuu dhahay aniga governor anaga way marka ninkaas horta la yaabin weli shaqadiis ma haway ma fahansana haddana ogo aan dad weydiiyey maxaa jira maxaa dhacay waxaa lii sheegay election Decembergii reer Mandera moogtahay December ay quraan akhristaa soo ma cidi kasta waa December quraan la akhristaa reer rebel xagga ay fadhiisana quraan aan akhrisan baashina quraan kelima ah oo quraanka marka laga baxo ma la sameeyni waxyaala la xasaabo soo ma waxaa maqlay ogon beelahana laba cid ay fadhiisteen oo quraan akhristeen oo wax sheegeen waxay dhaheen kursi Mandera East aan rabnaa ogo taasna inay keentaan u malayna because 2.5 years after 2.5 years nin MP u dhahay I will hold county government accountable waa wax weyn ka maqan aniga run ahaan markii la soo doortay go'aan waxaan gaaray in la shaqeeyo all the leaders MCS senator women rep MPs kala mut markaan launch gareynay arrimihii basari MPyash kulli waan soo qaaday waxaan joognay Ramo waxaan u sheegay arrimahan basari aan kala qaadana
aniga waxay secondary school ka soo Mandera County kulli aan bixina iska dhaafa idinkana college oo hadda laga hadlay iyo jaamacad bixiya mar labaadna waxaan dhahay bal arrintan system kan because waxaan u shaqeynaa waa reer Mandera soo ma system online oo cadaalad oo transparent aan ka dhignaa oo waxay bixinay in la ogaado waxay MP gi bixiya aan la ogaado weeshin MOU aan kala saayeen training aan u sameynay county government of Mandera nima la yiraahdo constituency managers and constituency staff iyo ward staff iyo department of education laba beri markay joogeen way diideen waxay dhahaan ma rabno sorry marka haday yiraahdeen waxaan bas nin walba shaqadiisa ha qabtaan MPyaasha kusema kweli ishma weyn aan u qabaa maadaama ay dad laga soo doortay countiga Mandera muhiimkana waxaa waaye inuu reer Mandera loo shaqeeyo soo ma yaa weyn iyo yaa dheer iyo yaa gaaban muhiim maaha ama la ragan ya anaa weyn anaa saani anaa mawtahay waa hadalkii shaytaan soo ma horta waa kelimada la yiraahdo ana culamada sheegay ma fiicnaba marka aniga waxaan dhihi lahay mushmuwa shaqadii meeshaan u dirnay shaqadii taa qabto Kenya lacagta markay la kala qaybiyo boqolkiiba 85 waxaa la heli dowladda dhace central government countyna 15 boqolkiiba 15% aa loo qaybinaa 47 oo county aniga waxaan rabnaa lacagtii 85 boqolkiiba inaas wax naga soo gooyo moogi inaas meelahan wareego oo waana county government accountable wax loo baahan yahay ma we have a competent county assembly we have a competent and experienced senator who are doing their work so we are not interested in support from any member of parliament in terms of oversight and they have no role at all